هلو 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 أصحابتا وايد السلامي reer America waxay idin tahay umaleynaya habeenimo aniga waxay ii tahay subax 10:18 in the morning ay tahay saacada Nairobi waxa idin ka codsanayaa qof kasta oo igu jira Facebook inuu barnaamijkan ii share gareeyo ii share gareeyo shimee idin kugu dambeysay ii share gareeyo la idin dhaho ii share gareeyo waliba anigu aan idin dhaho ii share gareeyo share igu qabta Minneapolis waa soo jeedin xilli fiican idin tahay ya share ku qabta ay soo wicina يا إسقاري 314 ujeeda waxaan looma baahna naasaha la iska garaac
walaalay reer cabdi dollar oo aan Minneapolis daris ku nahay reer qaybtoodna Sweden ay degan yihiin family kita kalena aan daris ku nahay Minneapolis reer cabdi dollar murugto idin la qaybsanaya waxa idin ku dhacay aadan uga xumahay aniga shalay toole Nairobi shalay ciid u ahayd Soomaaliya shalay toole aniga Snapchat-kayga iyo Facebook-kayga iyo media-hayga ciid wanaagsan oo ku qoraay may aragteen anigu shalay ma ciidin sababtoo ah waxaan u ciidaynin oonan u ciidin waa baxay oo qadaan aado waa soo noqday laakiin ma ciidin mana idin la sheer garaynin ciid wanaagsanna idin ma dhihin sababtoo ah waqti aan farxo ma ii gelin mana ii ahayn xilli aan farxo dad walaalahay ah ana aad u jecelahay daris aan ku nahay Minneapolis ayaa dhibaato gaartay Facebook-gayga waa ku soo qoray wiilka sawiradiisa waa soo dhigay waan ka hadlay qoraal ahaan laakiin waxaan ii sheeg ku mashquulsanayn ii sheeg lasti maanta waa arbacadii la soo dhaafay wiilkaas xamar lagu qashay arbacadii la soo dhaafay wiilkaas dhibaatadu ay gaartay ilaa arbacadii la soo dhaafay ilaa iyo shalay toole inta aanan qoraalka soo qorin waxaan isku talaagereynay inaanan media-ba soo gelin oo wax allaala wixii aan xog hoos u raadi karno ama aan hoos u xallin karno inaan hoos u xallino ama aan wixii aan xog ah ama caawimaada aan hoos u raadi karno aan hoos u raadino arrintu waxay ka maarmi dhibaatada ka dhacday ninka dhibaatadaas geysanay si abay telefoonka qoraalka aan ku soo dirsaday kiina si aan u akhriyo ninka dhibaatada geystay magaciisa iyo informationkiisa waan raadinay ruuxaantii waa dadaalnay iyo macal taliyihiisa iyo cid